qiso cajiib ah oo ku cibro qaadasho mudan. waxaa jiray famil taajir ah, ilaahay siiya lacag iyo awlaad. waxaa u joogtay gabar yar oo guriga uga shaqayn jirtay. waa gabar 10 jir ah, ka dhalatay qoys faqiir ah. waxay ahayd gabar nadaafadda aad ugu dadaasho. subaxii alisi ayay u soo kici jirtay, quraac u diyaarin jirtay. wax walba oo loo dirsado si dhaqsi ah ayay u diyaarin jirtay. caruurta iskuulka geen jirtay, wayna ka soo celin jirtay, cuntona way siin jirtay. sidaas ay tahay, qoyskan waxay ahaayeen kuwo aan naxariis lahayn. mar walba way ku qaylin jireen, hadday soo daahdo way dili jireen, ilaa odayga marmar ku dhajiyo fiilo koronto ah ilaa ka suuxdo. subxaan allah, maskiinta siday u garaacayeen ayay markii dambe indho beeshay. indhaheedii waxay ku weysay garaacitaanka badan ee garaaci jireen. markii dambe shaqada ayay ka buriyeen, iyagoo dhahayo qof indhool ah nooma shaqayn karo. iyada oynaysa ayay iska soo baxday guriga. sanadooyin kadib, familkii wiilkooda ayaa jaamacadda dhameeyey, wuxuuna guursaday gabar aad u qurxoon. ilaahay baa ku irsaaqay cunug aad u qurux badan, laakiin waxaa naxdin ku noqotay inuu wiilka dhashay noqday mid aan wax arkin, indho daboolan. gurigii farxadda badnaa muruga ayay isku beddeshay, sababtoo ah cunugoodii ugu horreeyey u dhashay isagoo indhool ah. muddo ayay ku noolaayeen farxad la'aan, wayna ka quusteen in wiilkaas yar wax arko. bilooyin kadib, xaaskii wiilka qabay ayaa mar labaad uur qaaday. waan ku faraxnay, annagoo rajaynayno markaan inuu mid caafimaad qaban noo dhalan doono. waxay dhashay gabar yar oo aad u qurxoon. waan ku faraxnay. doktoorkana waxa uu noo sheegay inay gabadhan indhaha u fiican yahay oo wax aragto. aad ayaa ugu faraxnay arrintaas. laakiin 7 bilood kadib, waxaa aragnay gabadhii yareed oo indhaheedii hal dhinac fiirinayo. indhahii oo isku imaaday, isbitaalka ula orodnay. doktoorkii ayaa haddana nagu dhahay, waa ka xumahay, gabadhiina way indho beeshay, wax ma aragto. arrinkaas markuu doktoorka dhahay ayaa awoowihii gabadha oo ahaa midkii dili jiray gabadhii u shaqayn jirtay ku meesha ka dhacay, naxdin awgeed oo ku dhacay dhiigkar. waxaana loola orday qaybta dadka dhiigkarka qabo wiilkii dhalay gabadha. isagana arrintii markuu maqlay ayuu qaylo ku dhuftay. isagana dhulka ayuu ku dhacay oo isagana isbitaalka la seexshay. gurigii farxadda badnaa muruga ayuu isku beddeshay. hooyadii gabadhii shaqaalaha dili jirta ayaa iyadoo yaaban musiibadan meel ay ka imaaday oo fikiraysa ayaa waxay soo xasuusatay shaqaalihii ay dili jireen. gabadhii yareed maskiinta ahayd ee sidee u garaacayeen indhaha beeshay. markaas ayay iska oysay, waxayna bilowday inay wadooyinka ka raadiso iyo guryaha meel walba inay ka raadiso ayay bilowday, ilaa markii dambe ay heshay gabadhii yareed maskiinta ahayd oo meel fadhiso. iyadoo oynaysa ayay u tagtay, cafis ayay ka dalbatay, wayna soo kaxaysay oo gurigii ayay ku soo celisay. waxaana guriga lagu xanaaneyn jiray 3 indhoolayaal ah. hooyadii gabadha dili jirtay ayaana u shaqayn jirtay gabadha oo mar walba cuntada u keeni jirtay. walaalayaalow, aan iska ilaalino dulmiga aad gashay. waad iloobi kartaa, laakiin ogow ciqaabteeda waxaad arkaysaa adduunka gudaheeda intii aakhiro la gaarin. ilaahow naga ilaali in aan qof bini'aadin ah ka galno dulmi. aamiin.